madaxweynaha Hirshabeelle ay maanta ku kulmeen saad ogtihiinba ama ummadda Soomaaliyeed ama beesha caalamka ogeed muddo hal sana iyo bilaa qabiilka xawaalaha oo dadka Hirshabeelle ka dhaxaysa ama qabiilaadka Hirshabeelle ka dhaxaysa kamid ah tabashay qabeen siyaabo kala duwan loo kala dhigdhigay dood dheer iyo dulqaad fara badan iyo isku tanasulaad fara badan waxa Ilaahay qadaray maalintii saddexaad ee la soo dhaafay madaxweynaha Hirshabeelle in bilowina lagu soo dhaweeyo dadka reer Hirshabeelle gaar ahaan kuwa reer Hiiraan gaar ahaan kuwa bilowina jooga ku soo dhaweeyaan qalbi furan gacmo furan si abniya wanaagsan ay ku soo dhaweeyaan asigana si sharaf leh ayuu uga mahad celiyay soo dhaweyntii maantana qabiilkii xawaalaha oo dadka Hiiraan qabiilaadka Hiiraan dhiga kamid ahay iyo madaxweynuhu waa kulmeen waa wada hadleen dhowr qodob oo hadda inaan hebel habin kulligood wada macquul ahay ayay madaxweynaha ka codsadeen ayagoo ka raali gareeyay wixii halkii sano dadka xawaalaha qofba si uu sheegay ayagoo ka raali gareeyay kula heshiiyay qodobka koobaad wixii la soo maray in laga gudbo haddana la wada shaqeeyo dowladnimada Hirshabeelle oo ka dhaxaysa Hirshabeellana qof walba kaalinteeda ka buuxiso qabiil ahaan waxay u codsadeen wax kasta ee qabiil ahaan u codsadeen in madaxweynaha hordhigeenna madaxweynaha غير الله سيه وأقبلي وبلغادي أسيغو قرب كستا من أسودي سكوسو أدينها إيه سيدا مالكتي أو كشرع قروبة سيدا سالقو هشيي سيدا سالقو فاتحي استي قلبي قال ليس كفري والليس عفيي والليس أقبلي والليس إيمان صبي قول إيه برواغو إيه بشبش إيه هرشاوي الله مدى iyo Hirshabeelle horumarkeedii amnigeeda wixii hadda ka dambeeya laga wada shaqay doono dadkay ka dhaxaysaana gacmaha is qabsan doonaan ayaa lagu heshiiyay lagu faataystay madaxweynaha iyo qabiilkii xawaalay maanta wada kulmeenna wax kasta ay ka hadleen waa ka heshiiyay